Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Waan ku soo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. kulanti wanaagsan mar kale kusoo dhawaada lesson-keena saddexaad oo aan kaga hadlayno Adobe Premiere Pro. Horey waxaan uga soo hadalnay casharka koobaad iyo kii labaad oo aan ku soo qaadanay sida codka loo soo saaro markii aad samaysatay sequence kadib inaad codka soo saartid isla markaasna la keeno track point-iga codka aan codka ku jarjaraynay. Hadda waxaa noo yaala video iyo cod ayaa isku kaya saaran. Waxaan soo qaadanay casharkii ugu dambeeyay oo casharkii labaad inaan soo qaadanay sawirka halka ka muuqanayo oo aan weli isticmaalin. Okay, marka halkii aan kasii wadaynaa sawirka haddaan doonayno inaan codka iyo muuqaalka aan u keeno sawirka waxaan sameynaynaa. Haddaba sawirka noo soo qaad oo halkan noo soo dhig. Sawirka marka wuxuu u muuqdaa inuu shaashada dhama ka kor maray oo shaashada dhama qabsaday. Kadibna asaga laftigiisaan ku kor dhufanaynaa. Markaan ku kor dhufano right click ayaan leenahay. Right click markaan aan ku dhufano ayaa waxaan ka dooranaynaa qaybta la yiraahdo set frame size. Set frame size marka aan niri intuu la ekaa oo muuqaalka markasta ka ahaa ayuu noqday. Kadib wuxuu noqday mid bar kamida muuqaalka qayb kamida ku aadan oo shaashadani ku aadan. Okay, talaabada kale aan qaadana waxa weeye inaan asaga kala bixino si aan muuqaalka u la ekaysiino. Waan qabanaynaa marka calaamadda sida noqoto ayaa u jiidaynaa muuska noo cadaadinayna. Okay, markay isagii isla ekaadeen sawirkii iyo muuqaalkii ayaan dib uga soo noqonay. Wadaan rabnaa inaan soo yareyno calaamadda saas aan u dhigaysaa markay calaamaddu noqoto calaamadda yar u muuqanaysa in muuqaalka afkiisa qaab u samaysan ayaa saa u gaabin kadhaa. Hadartii inaad dheerisidna saas u dheereynaysaa. Ayaa u dheereynaysaa. Labada waa tilaabada waa samayn kadhaa. Okay, marka halkan ay nooga muuqato waxaan ku dhufanaynaa sawirka ayaan gujinay. Halkan waxaan ka helnay clip-teena waxaa noo soo baxday qaybtan oo ah motion iyo capacity iyo time remaining. Marka waxaan ku dhufanaynaa motion-keena ayaan furaynaa ficta hore ayaan furaynaa. Laakiin iska jir haddii aad halka kor ku dhufatid calaamadii way isbedelaysaa oo qorshihii si kale isku bedelay oo wixii dhan way isbedeleen. Marka ha ku qaldamintaa ha yeelin marna. waxaad leedahay halka ficta yar baa furaysaa fx ta waa iska deynaysaa. Ficta yar baa furay. Markaan ficta yar furay maxaa aragtaa halka ayaa laga yareyn karaa sawirka. Halka ayaa laga yareyn karaa lagana weyneyn karaa soo ma arkaysid. Okay, halkan waxa weeyaan waxaad uga dhinaca right iyo maxaa la kor iyo hoos baa u dhaqaajinaysaa. Waa kor hoos iyo kor. marka xagga u socoto minuska xaggiisa oo dhinaca midiga u wada kor weeyaan marka kale tan waa hoos tiro dhinaca u socoto halkaas ay ka maamul kala adoo muuska cadaadinaya ayaa dhinaca u kaxayn kadhaa. Okay, hoos baan geynay. Marka hoos geynay midaan ayaa laba dhinac iska leh right side iyo maxaa la yiraahdaa left iyo right. Okay, marka laba dhinac tiro dhinaca u kaxaysid weeyaan waa soo kaxaynay dhinacaan keenay. Okay, waxaan ka dhignay shaashada yar halka taala haddaan rabnaa si yareyno wax yar baan ka dhigaynaa. Okay, haddaan doonayno inaan halka geeyno sida muuqaaladeeda ay loogada meesha ka saaran tahay kala haddaan doonayno inaan geeyno xaggan u kaxaynayo inteeda la eg ayaan kor geynaynaa. Kor markaan geeyno ayaan fartaan dhinaca kale u wadaynaa. Dhinaca tirada u badanaysa ayaan u wadaynaa ilaa halka ay tagto. Okay, halka ayaan keenay waxay hoos soo dhig. Okay, halka waa geyn karnaa si meesha loogada saaran tahay kala to. Okay, marka aan fiirino marka aan xaqiijino muuqaalka inuu socdo iyo codka. Okay, codkan kabanka aan soo doortay ayaa qaylan xogaa dheer. Marka dad doonaya inaan gaabiyo codka maxaan sameynayaa asagaan ku dhufanayaa. Markaan ku dhufto ayaan furayaa qaybtaas ay ku qoran tahay volume. Markaan furo waxay soo baxaysaa qaybahan minus-kana sii badinaya. Minus-kan ayaa sii badinaya. Markaan sii basraan dhageysto marka
weli waa la maqlahayaa ilaa heer laga maqli waayo waxaan ka dhigayaa minuskaasaan sii wadahaya. minuskaas ayaa sii soconaya. soo ma arkaysid waan aamusinay dhibicdaa intaa u dhaxaysa meesha ka bilaabato ilaa meesha ka dambayso meesha ku bilaabato saar baan yidhi. haddaan dhibicdan xagga u rarno bartanka geyno markuu dhexda uu marahayo ayuu codka bilaabahaya. haddaba aan xagga u dhaweyno tana xagga aan u dhaweyno. okay wuu dhamaadaba intii la gaarin buu dhamaadaba. okay xaggaas ma u jiray la codka intaan ahaa. okay intaba ha noqdo laakiin ujeedadu waxay tahay in aan haddii marka ay kuu soo baxdo tan oo kaleeto oo boxkan yar hadduu kuu soo baxo dhinacaas hoosu ka soo baxaya waa iska clean baan leenahay. kadibna waa iska close baan iska leenahay. panelka xoogaa codka kugu soo noqonayo ayuu errors keenayaa. marka waxaan sameynay laba muuqaalkan is saarnay iyo waxaan sameynay codkii iyo muuqaalkii iyo sawirkii aan ku qurxinay aan sameynay. codka haddaan doonayna inaan muuqaal kale ka soo ka marino sidii videoga hadda aan sameynaynay oo kaleeto sidii sawirka aan hadda ka saarno oo kaleeto ayay yeelaynaa. marka ku dhufo sa muuqaal kale usoo keensano control iyo waxaan leenahay waxaan isla qabanaynaa iyo control baan nidhi. wuxuu leeyahay meesha kasoo qaadan lahayd noo dhig. halkaan kale kasoo qaadanayaa. okay sawirkan kale ayaan soo qaatay muuqaalka yar oo ka muuqda halkaa. okay waa muuqaal caadiya halkaan noo soo galay. okay halkaas isna soo dhiganay. marka muuqaalada caadiga qaarkood cod bay wataan oo codkii waa kan. haddaan doonayna inaan muuqaalka iyo codka kala reebno waxaan sameynaynaa codka qaybta ku aadan ayaa log ku xiraynaa. log ma ku xirnay waxaan tuuraynaa oo delete computerkeena ayaan riixaynaa si codka meesha uga tirmo. okay mar kale aan ku celsho codka wuu noo soo noqday. qufulka haddaan ka qaado wuu furan yahay. marka haddaan kan doorto kana wuu dooran yahay. haddaan doonayo inaan codka kaliya ka tuuro meesha waxaa dhacaysa labada waa tirmayaan. control z markaan usoo ceshado. haddaan doonayo inaan marka muuqaalka tiro waxaan leeyahay log muuqaalka haddaan doonayo inaan muuqaalka maahan codka tiro waxaan leeyahay muuqaalka log saar. kadibna filmka ku xiray waxaa idin tuurmata codkii. kadibna haddaan doonayso inaan samayso maqalka reebato muuqaalka reebtina maqalka waad xiran kadhaa. labada waa isku mid. qufilkan wuxuu ku xirmayaa maqalka kana wuxuu leeyahay muuqaalka. waxaana kala qaybisa qaybta mta ay ku taxan tahay waxa weeyaan codka. qaybta ay ku taxan tahay meeshaan u eg eyes-ka qofka ama isha waxa weeyaan muuqaalka la arkayo. okay marka muuqaalkan soo qaadanay kor ka sii saar. track saddexaad baan saaray 1 2 3 saddexda waa cod. okay marka qofkan aad buu u weynaaday sidaan u leekaysino maxaan oran jirnay control waxaan leenahay waa korkeena muuska. waxaan leenahay right click. waxaan leenahay leekaysiin shaashadeena. marka qof sidaan markuu noqday waxaan leenahay waxaan raadsanaynaa qaybtii effect ayaa iga maqan. halkaan ku dhufanayaa. waxaan leeyahay control effect. marka waan dooranayaa kan. marka waxa isoo baxay tan isoo baxday. marka effect control waa inaan helo horta marka koowaad. marka labaadna waxa weeyaan waxaan furayaa motionka ayaan furayaa. markaan furo qofkan waa yareynayaa sawirkiisa. muuqaal yar markaan ka dhigay waxaan leeyahay dhinaca u wadahayaa. dadana inaan hoos geysaan leeyahay. xaggaa waxaan u sii geynayaa sida qof aljazeera oo kale qof hoos ka hadlay qof dhagala oo warka turjumaya camal oo kaleeto. marka aan baraaweeye marka haye muuqaalkan shidnay. marka qofkii hoos buu taagan yahay waa socdaa codkii maqalkii waa socdaa xoogaa laakiin computerka ku dhegdhegaya. okay marka saddex muuqaal ba meesha noo taala. saddex muuqaal maxay kala yihiin? mid waa kan oo waa shaashadan weyn oo halkan nooga muuqata waa muuqaalka weynaa. dowladka sawirka ay ku qoran tahay sawirka yar oo halkaas aan xagga geynay iyo kan ugu koreeyo oo ah
practica 2 oo ah kan qofka ka muuqdo oo green screen ka ku jira. Okay, marka waan gaari doonaa inaan kalarada dambe bedelno oo meeshaan ka dhigno meel dhir ah ama se meel si kale kan qofka sidoo kale tan sawirka kale sidoo kale muuqaal inta wax ku soo gabagabeynaa cashirka saddexaad la soco cashirka afraad ee muuqaal sameynta Adobe Premiere Pro iyo Ikhlas Academy and Technology. haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan nagu soo biir oo subscribe saar una share garee asxaabta kale ama dadka kale ee af Soomaali ku hadla oo doonaya inay kororsadaan xirfadda film sameynta. magacaygu waa Cabdinaasir Axmed Jaamac.